aan uga mahad celinayno dowladda Masar taageeradeeda Soomaaliya iyo taariikhda fog aan wada lahayn Soomaaliya iyo Masar waliba dadkeenii waagi wax bartay aan xasuusano macallimiintii iyo professoradii Masaarida ee dalkan wax ka dhigay iyo iskuuladii badnaa ay ku lahaayeen maanta waxa farxad ah in iskuulka 15 May ay macallimiin Masaari nala joogaan oo ayagana uga mahad celinay taasna aan rajaynayno in xiriirkii gobolka Banaadir iyo dalka Masar ba aan dib u soo hagaajino waxaan kala ku hadalnay sidii Cairo iyo Muqdisho xiriirkooda iyo loo hagaajin lahaa oo aan u wada yeelan lahayn mataaneyn labada magaalo labada caasimadood runtii annaga maamulka gobolka Banaadir maamulka shacabka anaga go'aan shacabka loo adeego si loogu adeegana inaan u ololayno sidii caasimadan horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa waxaan kala ku hadalnay sidii shirkadaha Masaarida ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka oo rajaynayno in mar dhowna safaaradooda halkan ka dhisan doonaan